بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا لذي لهانتين بكسو دوادا برنامج gaar oo aan ku eegayo qarxii weynaa ee daraato ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa waxa uu ku qarxay isgoyska Soobe ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa ahayd meel aad u mashquul badan iyadoo xilliga uu qaraxa ka dhacayna ay ku sugnaayeen shacab aad u fara badan. gaariga qarxay oo magaciisa lagu sheegay TM ayaa xilliga uu qarxayay waxa eryanayay ciidamada ammaanka ee dawladda Soomaaliya sida uu warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. qaraxa oo ahaa mid aan noociisa horay loogu arkin magaalada Muqdisho ayaa waxa uu gabi ahaanba baabi'iyay goobihii ganacsiga ee ku yaalay kilomitir 5. Liibaan Cumar Sheekh waa goob jooge ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay waxa uuna ka sheekeynayaa wixii uu indhihiisa ku arkay. magacaygu waa Liibaan Cumar Sheekh oo ku nool xaafadda Wadajir gaar ahaan xaafadda Buulxubey. waxaan ahay wiil bajaajla ah kadib markii anigoo aan wata bajaajka ayaan waxaan ka imaaday Banaadir. waxaan imaaday isgoyska Soobe oo isku xiran aad iyo aad isku xiran. waxaan isdaba joognay baabuurka hadda aad u jeedin oo meesha ku holcaayo raashinka sido. baabuurka gadaashiisaan joogay baabuurkii waxaan u sheegtay inaan dhinac baaso. waan mooday waxaan ku leexday laamiga laamiyaraha Soobe aadan cadde. mar alaale markaan gooladkii aadan cadde aan galay qaraxii wuxuu iskaga daba dhacay maxaa ka galay ilaa ay xaafadda in la gariirto. bajaajkii baakintay waa soo orday haddii aan soo orday waxaan imaaday meeshii dhibka ka dhacay. inta aan soo gaarna waxaan arkay isbitaal aadan cadde ee nin caloosha ay ka baxsantahay beerkiisa banaanka taalo. gabar madaxa foqsan adiga waxaan indhahaada aan qaba karin oo aad iyo aad ugu calool xumaanaysid ayaan la kulmay. wallaahi gaariga qaraxa dad waxay ku leeyihiin kolay sida hadda afka ugu badan yahay gaari weyn inuu ahay laakiin magaciisa ma sheegi kari. gaariga laakiin inuu weynahay oo weyn yahay ay maxay caddahay. qaraxa hadda tan u jeedin meesha qaraxa ku dhacayna qarax yar ma kolay ilama aan gaari yar inuu yahay. aagaan oo dhan uu barbaray ina hadda Soobe ay joogtid ina Banaadir joogtid ma kala saari kartid. calool xumo aad iyo aad u weyn ayaa meesha ka dhacday. dadka iyagoo nafta ay ku jiraan oo dhaawac ay yihiin ayaa dhagaxinta hoosteeda ay ku jiraan. qaarkood iyadoo dhintay meedkii aan la kala aqoonin. laamiga Soobe markaan soo istaagay hadda tan waxaan arkay calool kaliya oo meel taalo, madax kaliya oo meel yaalo, gacan kaliya meel taalo, lug kaliya oo meel yaalo. marka dhibaato aad iyo aad u xun indhahaada ay saqabo karin ayaa meeshan ka dhacday. meedadka wallaahi kolay sidaan aniga haddeertaan indhihii aan ku arkay 20 ilaa 20 iyo ka badan. wixii haddeertaan qarsoonna aan la sheegi karin. xataa 20ka kuma jiraan inta xisaabtooda aan la sheegi karin. inay rag yihiin, inay dumar yihiin, inay caruur yihiin wax la sheegi karo male. waxaa ka sii baabuurtii hanti iyo naf intaba meesha way ku baabaaday. marka waxaan leeyahay ilaaha gargaarka ummadda islaamka shacabka meel walba ay joogaan ha isku gargaaraan cadowgana ha iska tiiriyaan nafsadoodana ha ku shahiidaan. ilaahayna waxaan leeyahay rabbiga ah naga bixi dhibaatada maalinta ku xigto way nagu sii zaa'ido saa. meesha hadda ay u jeedin gurmadka waxaa laga rabaa askarta laftirkooda gurmad inay fidiyaan laakiin askari ka faanayo dhaawac ama dhibaatada dhibkeeda leedahay. shacabkii oo dhan waa dareenkooda waa kacsan yahay. dareenka qof walba dareenkiis meesha uu marayo ilaahay baa og. marka waxaan leeyahay ilaahay dhibkan Allah naga qaado. Allah wax ilaali karo, Allah maxay nabad keeni karo. ilaahay ha noo soo gargaaro. kadib markii ay musiibadu dhacday waxaa goobta soo gaaray mas'uuliyiinta dawladda, ciidamada ammaanka iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyagoo gurmad u fidinayay dadka ku waxyeeloobay qaraxa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo kamid ahaa mas'uuliyiintii ugu horeysay ee gaartay goobta uu qaraxa ka dhacay kuna howlana gargaarka degdega ah ee loo fidinayay dadka dhibaatada ka soo gaartay oo la hadlayay qaar kamid ah warbaahinada Soomaaliya ayaa sheegay in waxa ka dhacay isgoyska Soobe uu yahay musiibo aad u weyn isla markaana waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay u gurmadaan walaalahooda dhibaataysan ayna u shubaan dhiigooda. sidoo kale gudoomiyaha iyo wasiirka amniga ayaa bilaabay inay dhiigooda u shubaan shacabka. saacado kadib waxaa shacabka Soomaaliyeed la hadlay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ugu horeyn u tacsiyadeeyay dhammaan dadweynaha isla markaana uu ka codsaday sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka ku jira cisbitaalada loona baahan yahay in loo shubo dhiig. wuxuuna iclaamiyay in dalka uu galay 3 maalmood oo borordiiq ah isla markaana calanka jamhuuriyadda Soomaaliya loo dhigi doono hoos. بسم الله الرحمن الرحيم
waxaan u tacsiyeenayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen maanta dadkii sida waxashnimada ahaa loo weeraray waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistiisa jannadiisa siiyo samri iimaan ka siiyo asxaabtooda eheladooda iyo qaraabadooda kuwii ku dhaawacmayna inuu Ilaahay u fududeeyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa falkii maanta dhacay ee foosh xumaa inuu ahaa mid ay shabaabka iyo nabadiidku ay la beegsadeen shacab Soomaaliyeed aan waxba galabsan taasoo ka turjumaysa cadaawadda ay u qabaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed aysan ku wajahnayn xarumaha dawladda iyo dadka dawladda u shaqeeya walaalayaal weerarkan naxariis darrada ah wuxuu ahaa mid lala beegsaday dad aan waxba galabsan oo ku mashquulsanaa nolol maalmeedkooda caadiga ah waxaan u mahadcelinayaa hay'adaha amniga kuwa caafimaadka shacabka Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaatay sidii ugu soo gurmadeen una badbaadiyeen dadkooda waalaha ah oo qaraxan waxashnimada ah ee dhibaatada ka soo gaartay waxaan shacabka Soomaaliyeed aan ku boorinayaa aan ku adkeenayaa inay garab istaagaan oo ay gargaaraan oo ay gacan siiyaan dadka waalahooda oo maanta ku waxyeeloobay qaraxii waxashnimada lahaa oo ka dhacay magaalada dadkaas oo qaarkood cisbitaalada ay yaalaan waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed inaan gurmad degdeg ah aan u sameeyno dadkaas qofkii ku tabaruci kara dhaqaale iyo qofkii ku tabaruci kara dhiig waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowga banaystay naftooda iyo maalkooda carqaladeynayana inay Soomaaliya hesho dawlad keenta amni difaacdana baddooda cirkooda iyo dhulkooda walaalayaal waxaa qaraxii maanta dhacay aan ku weynay dad badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa sidaas darteed waxaan ku dhawaaqayaa 3 maalmood oo borordiiq ah iyo calanka jamhuuriyadda in hoos loo dhigo waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u midoobaan cadowga banaystay dhiigooda iyo maalkooda una taagan inuu carqaladeeyo nabadgelyada waxaan uga adkaan karnaa cadowgaas inagoo mideenna maskaxdeenna maalkeenna iyo muruqeenna meelna aan iska dhigno kala qaybsanaanshaha aan u adeegayn danaha qarankeenna ugu dambeyn waxaan hay'adaha amniga farayaa inay adkeeyaan nabadgelyada si ay uga hortagaan dhagarta al-shabaab annaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan ahmiyadda koowaad siino sidii aan u soo celin lahayn ammaanka dalka wabilaahi tawfiiq mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaan u kala harin sidii ay dhiigooda ugu deeqi lahaayeen dadka dhaawacyada ee ku jira cisbitaalada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu ka dhacay qaraxa waxa uuna u duceeyay dhammaan dadkii ku dhintay iyo kuwa kale oo dhaawaca ahba ومصيبة قروة مصيبة كنت نقولها بستي وأنا أركتان والله إنه بديتك شبابك وحي لدى قارين بيوت شخص ما وحي لدى قارين وشعب الصومالي وكل يوم وحي لدى قارين والله محيقة لبصي الميشة وكل واحد محيقة ضدك محاولة تاني وانت أصلك محاولة تاني أدرى الله ويستحوي لكن هو ما قلقصك هلا هاي هويين هلا هاي أبوين عروق هلا هايين وعليه هو حوي إنه هو مستعجل أنا استعلم منه هذا هو هرب كعب هو مدينا ماله البصان الله نستعلم الله نحرس نتي دمتي أنه تجاب قوودنا إن شاء الله تجاب قوودنا لكن وحلو بهاي هي كل جن إنه مستعجل دجال كان دولة كلية ما شخصنا ما دجال كان دجال كوسعة ومدة الصومالية بيهان بدنا الصومالية كوسعة هدانا لو استاجل فدق الله كعي مصيبة ونقص عليه intaasi kadib waxa uu madaxweynaha booqday dadkii ku jiray cisbitaalada kuwaasi oo isugu jiray dad qaba dhaawacyo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen caruur waxa uu madaxweynaha aaday dhanka kaydinta dhiigga ee cisbitaalka Digfaar oo hadda la dhahaa Erdogan si uu dhiigga ugu shubo dadkii ku dhaawacmay qaraxa intaasi kadib waxa uu madaxweynaha la hadlay warbaahinta wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idin raahdaa hooyooyina
aabbooyina walaalaah iyo ahaayeen oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso waxaan ka qaadanaa geesinimo waxaan ka qaadanaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iska qabanno aan u ciribtirno hadduu Ilaahay yiraahdo dhalinyarada waxaan leeyahay dalkan idinka iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la leynayo waa hooyooyinkiin waa aabbayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dawladdiina weey waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dawladda u shaqeeya ma aha dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre ayaa gaaray isgoyska Soobe oo ah goobtii uu ka dhacay qaraxa iyo isbitaal Madiina oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dhaawacyadii iyo meedadkii uu saameynta ku yeeshay qaraxa isagoo halkaasi saxaafadda kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhaawacyada aan dalka wax looga qaban karin loo qaadayo dalka dibadiisa ra'iisul wasaaraha ayaana shubay dhiigiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka nimid aniga gudoomiyaha iyo xildhibaanada iyo wasiirada isbitaal Madiina oo ku soo aragnay dad meyd ah iyo dad dhaawac ah haldana waxaan nimid meeshii shalay uu qarax ka dhacay meeshan runtii waxaa ka muuqda inay tahay musiibo qaran cid walba oo ku fikiri karta in waxaan lagu sameeyo dad shacab ah rag iyo dumar iyo haween dhalinyaro odayaal waa cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa haddii aad ganacsato tahayna nolol kuma haysatid sidaan haddaad arday tahayna iskuul ma aadi kartid haddaad shaqaale dawladeed tahayna ma shaqayn kartid macnaheedu waxay tahay waxaa lala dagaalamayaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waa inaan waxaan meel uga soo wada jeesanaa waa inaan wax walba oo kaloo jira intaan dhinac u dhiganno aan ka shaqaynaa haddii Ilaahay yiraahdo ummaddeena sidaan u badbaadi lahayn guddiga maanta aan magacaabay oo howlaha musiibadan qaran la xiriira ka shaqaynaya waxaan ka codsanayaa in sida ugu dhaqsaha badan meydkii aan ku soo aragnay isbitaal Madiina loogu sameeyo aas qaran loona duugo sida ugu dhaqsaha badan dhammaan shaqaalaha dawladda waxaan ku amraynaa ama la farayaa inay gacan ka geystaan sidoo kale gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna dadaalka sii laba jibaaraan dadkii ku dhaawacmay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan bilaabi doonaa oo aan ka codsannay dawladaha aan saaxiibkana in dalka dibaddiisa lagu soo daaweeyo nambarkii tiradii ugu horeysana berita aroorta hore ayaan qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo banaanbax aad u weyn oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka dhacay baaxadda weyn ee daljirka Dahsoon halkaasi oo ay shacabka kaga hadleen dareenkooda ku aadan qaraxii Soobe iyagoo wacad ku maray in ay isdifaaci doonaan dagaal culusna ay ku qaadi doonaan maleeshiyada al-shabaab Soomaaliyeed muslimiinta meel walba dunida ka joogaan waa salaamaya waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin baroor diiqda aan muujiseen Soomaalida waa dad dhiig leh Soomaalida waa dad damiir leh Soomaalida waa dad isjecel laakiin waa lagu dhex jiraa dadka ku dhex jiro Ilaahay naga saartan labaad ummadda Soomaaliyeed sida dhiirigelintiin u muujiseen dadka bukaanka ay waxay u baahan yihiin hadal wax ma u taraayo meel u baahan hadal wax kama tirtaal Soomaaliyeed kuwa buushka ka soo baxay nus dollar way awoodaan ardayana internet ay isticmaalna wax dhimanaa waa dhalinyaro waxa loo danleeyaa waa dhalinyaro waxaana wixii maanta wadanka wax u qaban lahaa birina wax u qaban lahaa haddaynan anaga isku duubnin wallahi inaysan cidinoo duubnin mid walba walaalkiisa tii lagu horgowraco wuxuu leeyahay wajiga qarsanaa laakiin intaad gunnimo ku dhimo lahayd gobnimo ku dhimo iskaashada dhalinyaro aqoonteena codkeena xoogeena caqligeena iyo garaadkeena isku darsano faliilaahi alxamdu waa guulaysanayna inta muslimiina waxaan ka codsanayaa salaatul iqaama inay tukadaan ee muslimiinta dhimatay u soo duceeyaan muslimiintaasna waxaan ilaahay ugu baryayaa inta dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawactana allaha caafiyo kuwa qalbiga ka jiran ee cadowga ee walaalahood cadowga ee loo adeegsanayna waxaan leeyahay walaalayaal ka soo noqdo sidaas idin ma noqonaysa ka soo noqdo haddaad jihaad doonaysaan oo jihaad doontihiin soo maahan dad lagu jihaado way jiraan laakiin shacabka iyo dhalinyarada maanta soo qalin jabiyay ee 20 sano lagu soo tiiriyay tacabeelay dhalinyaradaas maahan kuwa lagu jihaado walaal ee Soomaaliya salaadayo ma waxa lagu jihaadayo you know waad ogtihiin macnaha waad ogtihiin waxa lagu jihaadayo waa gaalada waa kuwa muslimiinta madaxa boorma ka dhacayso you know maxaad Soomaali weystiin aad halkaas diyaaradaada ka xigtay walaalayaal waan bariyaa dhalinyarada iskaashta
kartaan wax waa qabsan karnaa wallaahi waa qabsan karnaa laakiin jooji cabsada billahi alxamd salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa xilli habeen ah waxaana lagu guda jiraa baadigoobka meydadka ku hoos jira burburka guryihii soo dumay waxaana howlgalka ku soo biiray oo ka qayb qaadanaya 450 askari oo ka mid ah ciidamada commandoska ee Soomaaliya waa kan sarkaal ka tirsan ciidamada oo ka hadlaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka danab ay u taagan yihiin saacadaas oo ay u nadiifinayaan oo indhihiin u shan yihiin inay dalkooda mar walba dhiigooda iyo naftooda iyo maalkoodaba ay u huraan ayay ugu taagan yihiin waxaan ka soo bixinay dhismayaashii burburay ilaa 3 qof oo meyd ah hadda waa soo saarnay intii kalena waa ku daba jirnaa waxaan doonaynaa mar kasta aan u taagannahay una dhimanaynaa waxay tahay dan gaar ah oo aan ka leenahay maahan waa dan Soomaaliyeed waa dhulka Soomaaliya waa qarannimada Soomaaliya oo difaacayno mar walba waa u taagnaan doonaa insha Allah ta'ala waana ka sifayn doonaa daalimiinta dalkan ee ku soo duushay haddii Ilaahay yiraahdo intaasi kadib waxaa goobta soo gaaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre waxa uuna la hadlay ciidamada gurmadka ku jira isagoo ku dhiirigeliyay hawsha ay ummaddu u hayaan waxa kale oo uu ciidamada u sheegay in ay yihiin kuwii u argudi lahaa shacabka maanta la xasuuqay ku kala duwantiin idinkii shabaabku iyaguna waxbay dumiyaan idinkuna waxbaa dhistaan idinku dadkiina aad u naxariisataan iyagu dadkooday baabi'iyaan idinku Soomaalinimada iyo qarannimada dhistaan iyagu waxay rabaan inay qof Soomaali oo dambe uu san noolaan iyagu waxay ka shaqeeyaan inay asalka ummadda Soomaaliyeed cirib tiraan idinkuna waxaad ka shaqeysaan qarannimo baaba'day inaad soo nooleysaan qarax shalay halkan ka dhacay waxa loogu talagalay in lagu dhibaateeyo ummad Soomaaliyeed oo shacab ah meeshii ugu shacabka badneed ayay la eegteen macnaheedu waxay tahay sidaan hore u sheegay waxay soo direen fariintii ugu dambeysay shabaab oo aan rabo qof walba Soomaaliyeed inay ogaato fariinta ay soo direen waxa ay tahay ma rabaan qof dambe oo Soomaaliyeed inay noolaato ciddi ka difaaci lahayd waa idinka waxaan rabnaa meeshan maanta waxaan imid iyadoo aan waxba looga jeedin ilaahay ka sakooyay idinka hadda waxay noqotay jid la mari karo sharaftiina iyo karaamadiina iyo cidaadtiina wax ka sheegaysaa qashinku marka la qaado meesha la hagaajiyana kuwii dembigaan geystay ciddi ka daba tegi lahayd oo falkaas ka jaasay lahayd waa idinka ciddu dalka ka xorayn lahayd waa idinka haddii aad aragteen in boqolaal Soomaaliyeed oo hooyooyin iyo aabooyin lagu laaya meeshan inaanay mar dambe u dhicin mar dambe inaan la leen yaa laga rabaa inay hor istaagaan diyaar ma u tihiin inaad sidaas yeeshaan nolol maxay nugu taraysaa in dadkeenna sidaan loo leynayo waa muhiim inaan maantay noogu dhowdahay dawladdiinna iyo idinku inaad gacmaha isqabsataan shacabkiinna waa idin jecel yihiin taariikhda mar baa la qoraa diyaar ma u tihiin taariikhdii shabaabka looga xoreyn lahay dhulka Soomaaliyeed inaad qortaan waa maadsantihiin waa idin soo ducaynaynaa wax walba xuquuq aad leedihiinna waa heli doontiin haddii Ilaahay yiraahdo danta qaranka weeyaan dalka iyo dadkaygo diintaan ku dhaarteen daacad baan idin ahay al-shabaab ka ducufka duligiyo qarmuunka أنا دبار جراية دلك إيا دكيغو دينتان كودارتي بعد باني دين أهي صوماليا suuqan arxan darrada ah ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa cambaareeyay qaar ka mid ah dawladaha caalamka iyo ururada caalamiga ah dawladda Turkiga oo saaxiib dhow la ah Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho u soo dirtay diyaarad siday daawo iyo dhaqaatiir kuwaas oo qayb ka qaadanaya gurmadka degdega ah
waxaana goordhow la filayaa in magaalada muqdisho ay gaaraan diyaarado kale oo sida daawooyin iyo dhaqaatiir oo ka socda wadamada Jabuuti, Qatar, Kenya iyo Ethiopia sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Yuusuf Garaad Cumar. Hadda waxaa magaalada Muqdisho ku sugan wasiirka caafimaadka Turkiga iyadoo ku dhawaad 40 qof oo dhaawacyo halis ah loo qaaday wadanka Turkiga. qaraxani ayaa noqday musiibo aad u weyn oo galaaftay nolosha dad kor u dhaafaya 260 qof halka ay ku dhaawacmeen 300 oo qof. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegayay dhibaatada uu geystay qaraxii maalintii Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale xaaladda isla magaalada Muqdisho. waxaad kala socoteen barnaamijka Udgoon Media xaruntiisa magaalada Nairobi waxaana idin la socodsiinayay anigoo ah Cali Bashiir Sheekh Ibraahim Bashkaysta. waxaana idinkaga tagayaa daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo.